الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي ما توحان روينا كهذا النهض إلهي قدره آدابت معنى جمعة أحكامت إلي ذهي إلهي وحاجر مالمها إلهي وحاو إلهي كفضلي معنى جمعة مالنت عيد ستمانك ومالنت عيد مسلمين وسدح هذا عيدود dadku islaamka ilaahay siiyay ayay kamid tahay waa maalin barakeysan oo ilaahay dhexdeeda dhigay fadli iyo ajir aad u weyn taasoo uu ilaahay u diyaariyay dadka muslimiinta ah ee ka qayb galay salaada jumcada waxa xusid ugu filan in maalinta jumcaha barakeysan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku magacaabay suurad dhan oo ilaahay ugu magac daray suuratul jumcah حديث وحاجرو وكسبنا ذي رسولك نبتكلي إن حريص دوشيس الله يالي وحا لغا وريي إنو يري مالمهين وحا أبو خير بدن مالنتا جمعة ذا مالنتا وحا دحديدا أهاذي أرمهان أرمهان صعدا يو إلهي مالنتا جمعة دحديدا يالي وحا كمد إنو إلهي مالنتا جمعة ذا وكدغي مالن إلهي أمي ومالن إلهي أمي نبي آدم sidoo kale waa maalin uu ilaahay jannada ka soo saari doono nabi aadam sidoo kale waa maalintii ilaahay nabiyullaahi aadam ugu dhintay sidoo kale waa maalinta ay dhici doonto saacada qiyaamaha sidoo kale maalinta jumcada waxa dhexdeeda ahaaday saacad ilaahay wixii uu adoonkiisa weydiista uu ka aqbalayo oo saacatul mustajaaba طبعا هدي وقفكاس بريادة ذا لي ماذا سيدا حديث كسوغ الرسول كنا بتقالينا حريص دوشيس الله يالي لغا وريي وحويري مخلوقات كإلهي أو أي كمديهين عركا دولكا ضبيلها بورها ملائكتا إيو بضها وحي كعب صدان ودنها نفرتكا غهيان ما نول بقو جمعة سوغشو إني تهي قيامة دي لكن سنصيب حمو بني آدمكو oo ilaahay aqli siiyay oo ilaahay ka fadilay intooda badan arinta waa ay ka dhuwan yihiin oo kuma fikiraan cabsida jirta maalin walba oo jumca oo soo gashana waxa jirto saacadaha ijaabada ee ku jirta maalinta jumcada waxa jiro xadiis ka sugnaaday nabiga nabadgelina xariis dushiisa Allah yeelay kaasoo uu leeyahay ruuxii baryadiisa laga aqbalo oo saacada muddadaas haleela wixii uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiisto waa la siinayaa marka waxa isweydiin mudan goorma ay saacadaasi ijaabad u tahay sida badi aan ogsoonahay Allahu a'la wa a'lam cid ogsoonaan karta ma jirto cid saacada ay tahay ogaan kartaa ma jirto laakiin waxaan idinku baraarujinayaa in aan ku dadaalno maadaama ay ku jirto maalin saacad oo istijaaba ilaahayna qofka uu u ballan qaaday adoonkiisa wixii uu weydiisto in uu ka helayo marka fadliga ay leedahay jumcada iyo salaadeeda waxaa kamid ruuxii ilaahay uu ka aqbalo آدابتي iyo dhamaan shuruudihii salaadaha la yimaada wuxuu yiri rasuulka nabadgelina xariis dushiisa Allah yeelay jumcada iyo laga gaaray ilaa iyo jumcada ku xigta ee soo socota isbuucaas waxa loo dhaafaa dambigiisa runtii xaqiiqatan waa fadli aad iyo aad u ilaahay siiyay adoomadiisa oo aad u weyn oo ilaahay la doortay in hal maalin ay kamid isbuuco idil 8 maalin oo ilaahay inta soo fadli siiyay alxamdulillah waxa kale kamid rasuulka nabadgelina xariis dushiisa Allah yeelay uu yiri maalinta jumcada waxa la soo bandhigaa saliga aad igu sallisaynaysan uu yiri nabiga wuxuu yiri saliga badiya maalinta jumcada
waxaan kaloo yacni ognahay ruuxii hal mar ku saliya nabiga nabadgelyo naxariis iyo dushiisa allah yeelay ilaahay ayaa 10 jeer ku saliya taasina waxay noqonaysaa halkii sali in uu la mid noqonayo 10 waxaa kaloo ka mid ah yacni fadliga ay leedahay maalmahaas jumcaha maalinta jumcada waxaa masaajida soo xaadira malaa'igta allah irdaha masjidka ay wada taagan yihiin oo waxay ajarka muslimiinta ayay u qorayaan wayna u duceynayaan waxaa kaloo ka mid ah fadliga ay leedahay maalintaas jumcada ah fadhiga aad fadhido masjidka oo aad khudbada salaada ku jirto sida ku timid axaadiis badan waxaa lagu qorayaa ajir marka waxaan allah ka baryaynaa kuwii ka faa'iideysta wa ilaa liqaa'in aakhara وشكر الله حسن استماعكم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي ما توحان روينا كهذا النهض إلهي قدره آدابت معنى جمعة أحكامت إلي ذهي إلهي waxaa jiro maalmaha ilaahay waxa uu ilaahay ka fadilay maalinta jumcada ah oo ah maalintii uu ciida sitimaanka waa maalinta ciida muslimiinta waa saddexda ciidood oo